markay xornimo bilaabanaysa sida la sheegay waxaa jirtay kutoka 50 years oo xornimo ahayd intaan MB noqonin waxaa jirtay 10 secondary school ayaa jirtay 10 secondary school ayaa jirtay wajeer high wajeer girls iyo saabunle umba godob u ahay inta kala 7 kala waxay aan mix secondary school maanta 4 sano on aniga MB ahay 6 girls secondary school oo 3 kun oo gabdho ay ku jiraan ayaan bilaabay meeshaas waxaa kaloo jirta magaalada anaytu wajeer aan joogno oo maanta wakiil ka yahay koono walba makoror meesha ka bilaabata meesha anaytu macallin salaad meesha anaytu axmed liibaan iyo elbay iyo meesha la yiraahdo barwaaqo meel aan light maanta aan geynin magaalada anaytu ma jirta intaana waxa lagu keenay kalsoonidaas idinka siiseen iyo kalsoonida reer wajeer ay siiyeen waxaa kaloo jirta sidaas ogsoontiinaan u malaynaa magaalada konton ayaa u shashaysa waxaa la soo maray qorob xaraar waxaa la soo maray riba waxaa la soo maray wajeerboor waxaa la soo maray meel walba intaasoo magaalo shantaasoo magaalo maanta waxay ku degan yihiin lightka ay ku degan yihiin networka ay ku degan yihiin saldhigga ay haystaan sub countiga qorob xaraar anigaa sabab u ahay magaalada riba oo idinka bilowdeen oo saldhig in maanta waxay haystaa gaal secondary school ayaa qabtaa network ayaa qabtaa light ayaa qabtaa maanta aqal walba oo magaaladaas ku yaala 140 aqal ayaa tuubo biyo la geliyay gabdhahana jirganka ay ku midkeenayeen intaas awal ma jirto ani waxaan ka rabaa danti guud oo maanta aniga lii doortay waan qabtay waa ka soo baxay meel walbana waa ka muuqataa raadkeeya waa ka muuqdaa Rashiid Kaasim maana muxishimuwa soo dhawow weekend horta shaqadiis qabatay oo iska qabatay maslaxada wajeer south aska qabatay waa ku mahadinayna wixii qabata ama jeebkaada ka dhiibtina ilaahay ha kuga abaalgudu bargana masaakiin badana biyo ku heshi badbaadana ku heshi nin xil qaade eed qaad wixii eedo ku soo qaad ama ku soo gaarina sabar waxay Soomaalida kuma mahdaa saddex walxaad yaa ninka madaxda lagu habaar Allah ilaahay ka dheeray hadalkaada lagu maqanca hambataada lama arka hogoogaada lama mahadi talaabadiis qaaday Soomaalida dhammaan dhow maanta ku culeys soo dhawow ugu dambeyntiina mudana Rashiid Kaasim amiin ayaa mar labaad loo soo xushay inuu u tartamo kursiga bariga wajeer waana ila tahay walaaliyaal waaqan anaga professionals walaaliyaal nala qaada in Rashiid Kaasim amiin wixiis aas hagaaji ha ahaato walaaleen baan soo dhisi jirnay godobana warsan jirtay annagana waa qaadi jirnay wax isbedel male walaalahayn codsiga inoo keeneen waa la gadoonay Rashiid Kaasim amiin shanta kala waa qaadnay meel qaadeen war meel qaadeen